موسى وليش كذي باي نص عتاه waxaanu ku weydiinaynaa su'aasha ah imikana ninka la yiraahdo Koorajaan iyo ninka la yiraahdo Inasan Weyne sheekooyinkoodii inaad wax nooga sheegto ayaanu doonaynaa Koorajaan waxa uu ahaa nin aadan madooba oo habar jecel ah Inasan Weynena wuxuu ahaa nin nuuxa oo reer daahira oo reer Yuusuf marka ninka Koorajaan la yiraahaa ayaa aad u cajaa'ib ahaa mahmaada la yiraahdo baaray guur oo silxigaaga la guur ee barina siyaas ku mahmaay jiray barigu ruushka ugu mahmaahay horta ninka lahaabuha baal ina walaashii dhashay bay hid Koorajaan inankiisuna waa qabay waxay lahayd sinxi weyn oo kan dharka ah oo martida lagu sooro oo aad qaali waa ninka Koorajaan nin aad u deeqsay waaba la guur Axmed Koorajaan ninka la oran jiray wuxuu jeclaa sinxiga ayuu martida hilibka ugu guri jiray marka inantii baa ku hawl badnaatay oo hadba reeray islaayeen markuu inantii dhibteedii iyo suqiyaasay dheefteedii wuxuu go'aansaday inay baar guurto oo ay sinxigeedana la guurto baaray guur oo sinxigaaga la guur ninka yiri buu ahaa waxa la yiri wuxuu ahaa ninka yiri raganimo dantaamoogi way ku jirtaa ninka yiri buu ahaa afar xaas buu lahaa Koorajaan xaas buu la yaalay oo kolkaa la joogay niman dhul bahanta ah ayaa u yimid oo kiisu sheeganaya waxa la yiri waniyo qabiilkan adoodaga u tacaynkaasa ayaa wax laga galeene kaaloona kala qabo nimankii soo fadhiista buuna waa 9 nin 9 nin wuxuu haystaa 2 awro u rarto ayaa qoyskaasu leeyay iyo 2 halaad oo isku sidkan 2 awr buu ki yaraa gowrac hilibkii buu yiri u bisleeya oo u kariya markuu u bisleeyo u dubay ayuu geedka u oodo uu ka tagay nimankii kiiska loo haystay buu tago wuxuu kala araga ka dawbaxa raggii ayay soo heshiin waayeen 3 habeen ama 4 buu maqraa wuu yiri 2 halaad isku sidkanaa ayuu tiiraad gowracay haddana wuu ku noqday nimankii bay soo heshiiyeen kolkii dambe wuu soo noqday 2 awr buu kii haray gowracay Axmed Koorajaan markuu intaas sameeyay ayaa habartii oyday oo maxaanu guriga kaga guuraynaa maxaad noo kadaysaa raganimada meesha raganimadu ku jirta danteenu kuma jirto buu nimankii wuu kaxeeyay nimankii buu geeyay si wanaagsan baa loo kala baxay nimankii farday wateen 9 farnino 9 faras watee markay tageen subaxee ayaa waxay soo saareen 9 nin 2 awr oo labaduba hoggaan yaqaaniin oo 2 hayin oo 2 biyamadaasho ah ayay 2 soo qabteen 7 kalena nin waliba qaalin 7 jiro uguma horriman buu saaray maalin saddexaadii baa xaaskii loogu keenay intii halkaa waxay yidhaaheen ninka 2 awr iyo 2 halaad haysteen noo qalay dee raggoda waanu dhahay abaalkii inaanu gudno ilaahay baanu ugu ballan qaadna dee horta raganimo meel cidhiidhiyan ba ku jirtaana waa la yidhaahaa halkaasi ayaa qoyskii ku noqday 2 halaad buu lahaaye sanadkiiba 7 u dhashay oo geelood iyo xoolo ka badan baa ay heleen Axmed Koorajaan wuxuu ahaa ninka yidhi maalin baan galikii hore taajirahaa galikii dambana caydhahaa habeenkiina aroosaha wuxuu kaxeeyey safar wuxuu qabtay majeerteen 7 awr oo safar isagoo wada safarkii baa la dhacay markii la dhacay ayaa dharkiina laga furtay inan baa isagoo mara xun ku masasaqan buu yimid qolada haydan qoladaas iyo qayta oo inay tahay ila boqor baan boqorka ay dhalay oo magaca adeer caynka inantii adeer isku jiro inta xaga kale ma geedka uga wareegtay maradii 3 qaydka ay xidhayd bay qayd u soo goysay isagoo ku ii guntan buu suldaankii u tagay boqorkii
wuxuu yidhi nin yow xoolaan waday safar baan waday adiga iyo anigaba ku filan inan heblaaye hebel la idhaahdo aad dhashayna inan ka u soo geed fadhiistaan u socday dee adigii iyo anigaba xoolihii naga badnaa waa la dhacay oo ayaa dhacay nimanka caynkaasa warrinka geedkaa wooda horta dhar u keena dhar baa loo keenay kii ugu qurux badnaa inantiina waa loo meheriyey rag buu diro wuxuu idhi haddaan masar waayo 70 awr wixii saaraa boqorkii xoolihii habeenkii baa loo wada keenay axmed koorjaan ayaa hal buu raacay faras buu la hadhay nin la yidhaha maxamuud oo ahaa ma maqasheen habar jeclay muuse waa kaa ninina muuse yuusufa oo maxamuud la yidhaah oo dabadii la hadlin ayaa faraskii oo uu geed ku xidhay iska furtoo kaxaystay koorajaan wuu iskaga tegey ninka la dhaa sayid cawad oo isaguna reer muuse ah iyo ducaale cilmi ducaale oo isaguna reer muuse yuusufa iyo inasan weynaa yidhi muxuu koorajaan faraskiisan ugu soo doonan waayay ninka oo uu ugu soo geed fadhiisa u odhan waayay intuu ka naqsado faraskaysiiya sheekhaanne waxay garteen inuu damcay inuu wax dilo iyo in la dilo uun inuu go'aansado axmed koorjaan maxaad u soo doonan weyda faraskaaga soo doonan maayo waayo ninkaagu maxamuud waa macangegna muruqaagaa la tusaa buuri wuu maahmaaha badnaa ninkaasi muruqaanu la tago inuu idiliyo inaan dilo waxaan ahayn ayaan dhaar idin maqashin doonaa haddayna waan iga tegin haddaanad faraskaagaa ku garnaqsan inaannu annagu jifala'aan kuu dilla intaa xila naga yimba saddexdiba ugu dhaartay wuxuu yidhi ma saasaa tiraan haa 3 nin haddaan la helin inayna faraskaa soo doonan baana intaa xila igayna farta dumariba koow marka u horraysaba ninka aw maxamuudow kiis baa lagu haystaa kaalay ka garba xodhan lahayo geedka keeni lahaa geedkaba ninka ku soo hagaajin lahaa kolka u horrayso haddaan la helin ninkii marka la garnaqsado odhan lahaa haddii laga helo faraska waar waa laga helay faraska bixi marka uu kucuu yaa la hadliyaysaan yidhaa ninkii odhan laha fadhiiso kelab iyo xubeeye xukumi lahaa 3 haddaan la helin inaanan imanin shirna garna naqsan baa intaa dhaariga tay wuri 3 baa la qaybiyey 3 nin ducaale wuxuu yidhi anigu geedka ninka soo fadhiisinayana waa ilmaadeen ruma iyo adeen ruma miduu haban kala garan lahay seedna wuxuu yidhi sayid cawadna wuxuu yidhi marka uu kaco inta laga helo hadduu la dhaqaaqo faraskaasi anaa dembiile inasan weynana wuxuu yidhi haddii laga helo garta ka maqashinaya inaan haddaan noqon waayo anaa dembiile sidii bayd u dhacday geedkii baa la yimid waxaa la yidhi waar hadal faraskian aad u sheeganaysa aw maxamuud siduu haa faraskii buu ka garnaqsaday sidaasuu haado halkaasaan kala hadhoo reerkaasoo hebel faraskiisi waa dad soo yaqaan baa hayntaa dadku kala hadhayna oo caynkaasuu haa dee kolkaa labadii faras anoo wata ma dagaalami kara mid baan geed ku xidho kiibuu iska furtay buuri haddaba waxaan idin leedahay 3 nin gartayda ma galaan ilaahay ma yaqaan aniga ima yaqaan aw maxamuud yaqaan nin 3aasi gartayda ma galaan buuri 3 kale gartayda ma galaan naasjiid iyo lugjiid iyo naxfijiid 3daasuna naf gartayda ma galaan buuri oo dee ninka naasjiida la dhalay abtiga loo yahay iyo kan lugjiida inanta lugta haya iyo kan naxfijiidka reerkan aw maxamuud ku nool 3aana wixiiba uu dee raggiiba 6daasuu noqday dadkii meesha joogayba dee inasan weynana ninka kiisadkaa qaaday buu ahaa haddaba soomaalida taarikhda leed waa badantay maanta koorajaan iyo sheekadiisiina intaa u dhaafmayno